بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة وحال يرهدا سورة التغابن magaceedana waxa laga soo qaatay aayada yawma yajma'ukum liyawmil jam'i dhalika yawmut taghabun halkaas ayaa magaceeda laga soo qaatay waa suura madaniya ah oo quraankii madiina ku soo degay ayay kamid tahay aktharka ahlu cilmigana sidaas ayay qabaan oo culimada intooda badan inay madaniya tahay ayay qabaan laakiin culimada qaar dhahayo markay arkaan qaabka ay suuradu u hadlayso waa suura makiya bay leeyihiin laakiin sida raajixa ahay culimadu u badan yihiin inay madaniya tahay oo quraankii madiina ku soo degay ay kamid tahay ayay culimadu u badan yihiin weeyaan suurada marka waxa way tasbiixdu ilaahay ku bilaabaya subhanahu wa ta'ala oo naftiisa oo nusqaan oo dhanba ka hufaayo Allah macbuud inuu yahay oo uu ku yahay kownuhu khaliqan inuu ahadka wax abuuray yahay cibaadadana asaga mutaystay adillaadkii kowniga ahaa oo macbuudnimadiisa tusayay ayuu Allah qayb badan nooga sheegaya bani aadamka inuu abuuray oo uu qaybiyay mu'min iyo kaafir samaawaadkii ardada inuu abuuray oo xaq ku abuuray cilmigiisa sida uu waasac u yahay qiyaamaha ka hadlidiisa iyo dadkii beeniyay masaa'ishaas suuradu ka waramaysa oo arki doona biidinilaahi ta'ala suurada marka waxa weeye waa suurta la yiraahdo as-suwar al-musabbihat tii shanaade ugu dambeysay weeyaan suuratul hadiid baan ka soo bilownay suuratul hashr baa tii labaad ahayd suuratul saff baa tii saddexaad ahayd suuratul jumu'ah tii afraad bay ahayd suuratul taghabun tii shanaad weeyaan waa suurta lagu bilaabo tasbiixda lagu bilaabo weeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim yusabbihu lillahi yusabbihu waxa tasbiixsado oo nusqaan iyo waxaanan u cuntamin ka hufaad lillahi allah waxa ku tasbiixsado oo wax naqsiyo dhanba ka hufaay ma fi samaawaati samadaha dhexdooda waxa ku sugan wama fi al-ardi dhulka dhexdiisa waxa ku sugan oo makhluuqaad ah ayaa ilaahay nusqaan oo dhanba ka hufa weeyaan lahu allah wuxuu leeyahay al-mulku tasarrufka koonka iyo boqortooyadiisa isaga iskale subhanahu wa ta'ala walahu allah wuxuu leeyahay alhamdu amaan wanaagsan allah iskale subhanahu wa ta'ala sida uu tasarrufka koonka iyo mulkidiisa u leeyahay buu hamdi iyo amaan oo dhan u leeyahay allah subhanahu wa ta'ala weeyaan wa huwa allah qadirun allihi karaway ala kulli shay'in shay kasta kulligi allah ahadka awoodo weeyaan oo allah awoodiisa wax ka baxsan karaa ma jiro wixii ka soo haro dhanna adoomay u yihiin weey marka tasbiixda in badan ayaan soo marnay wa tanziihu allah azza wa jalla min kulli ma la yaliqu bi kamalihi wa jalalihi wa alla waxaan rabbi cadamadiisa iyo weyninkiisa u cuntamin oo dhan oo rabbi laga fogeeyo laga nasaho ayaa tasbiixda la yiraahdaa weeyaan asalkeeda xagga luqada tasbiix marka la yiraahdo at-tasbiihu fi al-lugha waxay culimadu ku taariifiyaan al-ib'aad 'an as-suu'i baa la yiraahdaa xumido qofka laga fogeeyo laga dheereeyo ayaa la yiraahdaa waa fogeyn waxuna dhanba qofka ahadka laga fogeeyo weeyaan marka allah waxa ku tasbiixsado ma fi samaawaati wa ma fi al-ard waxa samada ku sugan oo malaa'ig ah oo jamaadaad iyo wax lamida ah yaani ajraamta falakiga ah iyo waxan anaga ogeyn oo makhluuqaada
ayaa ilaahay nusqaan oo dhanba ka hufo samaawaadka ardada dhexdeeda waxa ku suganna bani aadam haday yihiin jinni haduu oo yahay xayawaanaad hadii ay yihiin haday geeda yihiin haday jamaadaad iyo dhagxaan yihiinna ilaahay bay nusqaan oo dhanba ka hufan subhanahu wa ta'ala kullu ilaahay ku tasbiixsadaan waana aayadii in badan aan ka hadli jirnay suuratul israa ilaahay uu ku sheegay inay shay walbaba uu ku tasbiixsado laakiin annaga aanan tasbiixdooda fahmi kareynin الله وحوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تضرب السماء iyo dhulka iyo wax makhluuqaad labadoodaba ku sugan ayaa rabbi subhanahu wa ta'ala ku tasbiix sado wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura waxa weeye shay majiro oo wax shayba lagu magacaabo ma jiro illa ilaahay ku tasbiixsadaa nusqaan oo dhanba uu ka hufaa laakiin idin kaanan fahmaynin tasbiixdooda idin kaanan garanaynin buu rabbi yiri subhanahu wa ta'ala waxa ogtiin nabiga kaleey salaatu wasalaam ahadiistiisa waxa kamida xadiis imaam muslim fi sahihi oo ku warina xadiis jaabir ibn samura radiyallahu anhu wuxuu dhihi jiray qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka allah wuxuu yiri إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لأعرفه الآن يعني أيامه أنا النبي لماذا لإيسو صاري ورسولك الله يقدقي وحان قرنا يا أبويني دقح مكة كميدة دقحان تيدا وأنا إسلامي جري مالمهاس وأنا نقال نابوير دقحاسي يعني إلهي وحضانه كهذا الشيء سبحانه وتعالى وياه marka nabigeenu salaami jiray xadiiskaasna waa xadiis sugan weey وكذلك waxaad ogtihiin xadiiska Imam al-Bukhari fi sahih asna ku sugnaa xadiis Anas ibn Malik radiyallahu anhu wuxuu yiri Anas khataba Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam nabigeena ayaa khudbeeyay geed timireed jiridiisa ayuu ku istaagay ku khudbeyn jiray intaana minbarka loo dhisin timir jirideed buu nabiga inta ku istaagay buu khudbada ku akhriyi jiray فلما صنعوا له المنبر نبي مركي منبر كلو سميهي فخطب عليه نبينا او خطبته كو اخريي حن الجذع حنين الناقه وحا اوللي يعني جيتمركي جرديسي ايا اولشي سدا اي يعني هشه اي او اولشو ilmaheeda darteed marka ay u ciyeyso kale ay u olasho oo kale uu dhawaaqay markaasuu fanazala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga minbarka ka soo degay famasahahu fasakana markuu yaani minbarka u wareegay ayuu ololayo qayliyo oo dhawaaqay taah baa laga maqlay oo aniin oo taahayo markaasuu nabiga inta soo degay buu masaxay markaasuu qayladii dhaafay sawdka uu joojiyay weeyaan marka anagu ma garanayno khalqiga ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantood ilaahay ku tasbiixsadaan subhanahu wa ta'ala weeyaan yusabbihu waxa tasbiixsado oo nusqaan oo dhanba ka hufo lillahi allah waxa ku tasbiixsado ma fi samaawaati samadaha waxa ku sugan oo makhluuqaad ah wama fi al-ardi dhulka dhaxdiisa waxa ku sugan oo makhluuqaad ah allah ku tasbiixsadaan subhanahu wa ta'ala lahu allah wuxuu leeyahay al-mulku boqortooyada isaga iskale تصرفك كون كان اسغا اسكله سو دونو امامولا وله الله وحوليه الحمد امان بوليه يعني الثناء الجميل امان وناكسن بوليه وحوي والمحمود على جميع ما يخلق ويقدر وحل وحو ابوري وحو قدربه الله كو امانن ويان امان ودن رب با اسكله سبحانه وتعالى وهو الله قدير الله كروي على كل شيء كست كله الله أود بأوليه وحوس الرب الدون كون كان كما سعبان ويا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الله سبحانه وتعالى أسقى أود هسبلارن اسكلوي هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هو الله الذي هو خلقكم إذنك بني آدم كإذن أبوري إذنكو إذن أبوري مركو إذن أبورينا فمنكم وحا إذن كمده كافر مدقال أهبا إذن كمده حق ديدي ومنكم وحا إذن كمده هذا بني آدم كيتهين مؤمن من إله الرمي وحق قاطيبا كمده والله الله بصير الله أركوي بما تعملون وحا سمين إيسان رب سبحانه وتعالى عمل كينو أركا
الله وأجيدا سبحانه وتعالى وأجيها خلقيسا قلده هداية متيستي إلا هنونيو أو إيمان كلا سيو قلده أنا متيسنينو إلا قال يسيو متيستي الله وكلا قرنا يعلم وإليه ويا مرك إلهي سبحانه وتعالى وحو معبود كيهي أو عبادة أو كمتيستي إنه خالقيا هو الذي خلقكم أسجى إذن أبوري أحد كلا إذن أبوري لما أركب بني آدم كذاتهم markaasuu sidoo idin abuuray buu idin qaybiyeeyo mu'miniin iyo kufaar buu idin ka dhigay labadaas u qaybsamaan qaarna waa mu'miniin oo ilaahay iyo rasuushiisa iyo diinkii bay rumaynayaan qolana diinkaas ilaahay iyo rasuulkiisa diidayaan ka hor iimaanayaan weeyaan ولذلك عبد الله بن عباس أيضا مركو فسيره وحوليه جري إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنا وكافرا إلهي وحو أبوري بني آدم كيبو أبوري سقو لبدا قيبودا قال مؤمنين يقول كفارا قيامهنا وسوء علينا أيوة لبدا أقيبسا قال كفارا يقول مؤمنين أيوة أي قبورته بكسو صار يمانك قيامها ويا هو الله الذي أله وي خلقكم إذن كيذن أبوري فمنكم وحائد كمده مؤمن فمنكم وحائد كمده كافر متقال بإذن كمده ومنكم وحائد كمده مؤمن كو إله الرميي أو مؤمننا أحد مؤمن إذنكم إذن كمده الله ولا سأقيب سميسا والله الله بصير الله أو علم أولهوي أو أركيوي بما تعملون وحد سمين إيسان عمل كينا إلهي وأقيا سبحانه وتعالى سيدا درتيد بو قلنا أقرتي إني مؤمنين نقضان أقون أو إذن يقانوا قلنا أقرتي إني كفار نقضان ويا خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خلق السماوات سمده بو الله أبوري والأرض دلكين وو أبوري بالحق حق بو كو أبوري ويا يعني عدل بو كو أبوري حكمة أي رب كو أبوري وصوركم واو إذن سوريي حدا بني آدم كيتهين markuu idin suureeyana fa ahsana wuu hagaajiyay oo wuu wanaajiyay suwarakum suuradiinina ilaahi waa uu hagaajiyay hada bani aadamkii tihiin wa ilayhi ila allah buu ahaaday almasiir noqodka meesha loo ahadka loo laabanayo oo dadka abaal marin doonana allah buu ahaaday rabbi baa idin celin maalinta qiyaamaha weeyaan allah samaawaadkii ardada wuxuu u abuuray xaq buu ku abuuray macnaheedu waxa weeye إن أو أصيغ كنجي معبود يهي أي خلق أدوماء النقدان أي سماوات كي وحكم بحسقنا مخلوقات أو أبوري وحو أبوري الله سبحانه وتعالى عدله وكو أبوري وحكم ذا مخلوق مكلفين تسد إنسي جنك إن كذا محسن كأه وناق سميه وناق لقو أبا المريم مالك قيامها كودا أدونك مركو جوغو مسيئة حميدة سمينا إن حميديسي لغا أبال مريو وعذاب لغا أبال مريو أي إلهي سماوات كي أرضا بو أبورتي ويا معناها مالن قياما اللي يرهدو إن يدد كان لصو ساري دونه أدونك انت جوغان ممتحنين أيهين أولا امتحان أيو جزوه وذنا أيهالك كوهل دونان ويا خلق السماوات سمديه بو ربي أبوري وتضبط أهاب أبوري والأرض دلكنا هو أبوري الله بالحق أي بالعدل والحكمة عدالة بربك أبوري عيار لو ما أبورين حكمة لو أبوري ويا وصوركم وو إذن سوري هذا بني آدم كيتهين وو إذن سوري مركو إذن سوري سورة داسو إذن يلا فأحسن وو هجاجي أو وناجي الله صوركم سورة ديننا وو هجاجي مركب بني آدم كا إلهي سبحانه وتعالى سورة سوحة أكوها جاجية قامضة إيجوجينت أوجوجية بينما حيوانات ككلا وح علاش كسو عضائيه وح أفر لقوم له اللفوررية وح لماذا أيهين إنسان كان سورة سوى لها جاجية سورة إلهي وأوها جاجية مركوا التصوير وأنا أكسبها بني آدم كربكو أبوري سيدة سورة العمران أنكسوا مرنيه كلا الله أوليه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم في سورة الغافرة كسوة مرنا الله أرني الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم الله وإذن سورة ديننا وأو حقاجي محايا لي إلهي وحوي روحان كو أبور بني آدمك توسنان تنهو وناك بدما كو أبور ربي
في سورة التين رب حوليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم توسنان تنقوه وناكبدا أي ربك أبور قام ذا إلهي أو جوجي سورة دا أو سوري أي وحوينة وسورة وناكسنويا وإليه إلى الله با يعني أو أهاذي الله بو أهاذي المصير النقد كان أي المرجع والمآب يوم القيامة maalinta qiyaamahan ilaahay baa loo noqonaya markii loo noqdana waxa way uu abaal marinaya khalqigiisa qof walba wuxuu leeyimid buu rabbi ka abaal marin walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard liyajzi alladhina asaa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna في سورة النجم وكسو مرني الله له سماوات في أرض رب وحو ليه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا إنه أبال مريو تدك حمان تسميين وحي أي سميين إنه كأبال مريو ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى تدك وناق سميين جنبيس إنه كأبال مريو أي إلهي أوليه سبحانه وتعالى ويه يعلم ما في السماوات والأرض يعلم الله أبيهي ما في السماوات سمدها دحدود waxa ku sugan oo makhluuqaad ah wal ardi dhulka dhaxdiisa waxa ku sugan oo makhluuqaad ah Allah ilmi buu u leeyahay ويعلم wuxuu og yahay Allah ma tusirruuna waxa aad qarsanaysaan oo siraysanaysaan waa og yahay wama tu'linuuna waxa aad la jahraysaan oo muujisanaysaan Allah waa og yahay subhanahu wa ta'ala weeyaa wallahu alla عليم الله أقوي بذات الصدور لا بها وحا أصاحبك إيه الله أحد أو كور قبه قلوب هذا وحا كجره هذا بري آدم تاي رب وأقيا سبحانه وتعالى كما قرصونه مركا آيات دانا علمي إلهي سبحانه وتعالى سيده واسع ويهي والشيء والبكل أو أكوبي أي رب سبحانه وتعالى كقور رميه وحكا قرصونه إني سنجرين وياه وح مخلوقات كيسو كقرصونه إني سنجرين وعلم أوليه إلهي في سورة الملك بانكو أركدون ألا يعلم من خلق بو إلهي إليه وهو اللطيف الخبير اللي أحد كيوح أبورتي ميوسن خلقه يسقرنين ويقان الله سبحانه وتعالى ويه مركا يعلم إلهي وأبيهي ما في السماوات والأرض ما في السماوات سمالها دحديد وحا كسوغن سماوات كتضبada dhaxdooda waxa ku sugan Allah waa og yahay wal ardu dhulka dhaxdiisa waxa ku sugan cilmi buu u leeyahay wa ya'lamu wuxuu og yahay ma tusirruuna ay alladhi tusirruunahu waxa aad siraysanaysaan oo qarsanaysaan Allah waa og yahay wama tu'linuuna ay walladhi tu'linuunahu waxa aad muujisanaysaan oo daahirinaysaan Allah subhanahu wa ta'ala waa og yahay ka warqabaa marka waa iskugu mid asirra wa akhfa labadaba ilaahi waa iskugu mid weeyaan في سورة الرعد إلهي وحوليه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله هو الله غيبك وحا مقلق وحا حاضر كان علم أوله والكبير المتعال الله سريه أو مارت وين سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار واسكومت إلهي سبحانه وتعالى قفك هذا الكيسة سريسته كلا جهره مدك هبينك إسقريه مدك مالنت هلك إسكمريه اسموجيه واسكومت إلهي سبحانه وتعالى ويا وح إلهي كقرصون لما أركويا والله أله عليم أله أقوي بذات الصدور لا بها وح أصاحبك قلوبته وح أصاحبك الله هو أقيها ويا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا بها وحي قرنيس إله علم بأوليه وانا كور قباويه ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ألم يأتكم ميونا إذين إيمان مشركين تي كفارتي نبأ الذين كوي وركودي كفروا قالوا بي وركودي ومن قبل هري وقالوا بي إذن كهري ميوسا إذين إيمان ويا حدوثت إذين إيمان والإذين شيقي فذاقوا ويددميين كواسي تدك إذين كهري وكفارتها وبال أمرهم أرن كوذا عقوبة ذي سبيد الدمية عرب حمدي سبيد الدمية وين هلموا ولهم وحي إليهم عذاب كأو أليم مدوحا وجينا آخر كليهم أدون كان عقوبة ذي بكل الدميين وكفر قودي يعني عقوبة ذي كرتب متى أدون كل الدميين آخرنا عذاب كاسيليهم مركا كوا وركودي ميوسا لدين مانين وي
idinka kufaar baatiin xaqi ba ku gaalowdeen marka dadka idin la midka aha adduunka lagu halaagay aakhirana cadaabkaas sugay idinkana ilaahay subhanahu wa ta'ala kama xigtaan isku mid baad u tihiin adoomaad u tihiin hadii aad xaq diidaan walidin halaagi sida kuwii hore loo halaagay aakhirana walidin cadaabi sida kuwa loo cadaabayo umad la mid tihiin way alam ya'tikum yawman idin imaanin mushrikiintiyay wa kufaarti baa la hadlayaa نبأ الذين كوي وركودي كفروا قالوا بي من قبل هري وإذنك إذن كهري يعني وحلو جيدا الأمم المكذبة سيد قوم نوح قوم عاد قوم ثمود قوم فرعون يوحي لمدكا ومذيه لحلاقي قوم لوط كوها أصباد لمتهينون كوها وركودي مينا إذين إيمان أمركودي مركب محوها مركي يعني كفر قال لي مادين والرسوش إلهي حقي وتين أي ديدين الله سبحانه وتعالى وأهلاقي ويا فذاقوا ويل دميين وبال أمرهم عرب حمدو ذا أم عقوبة ذي أرنكودي أو كفر قاها يعني عقوبة ذي سبيت الدميين ويا وبال أمرهم بيت الدميين لأن الوبال حق اللقضة وحي علماء كير هذا والثقل والشدة بالي هذا عليسك هي شدة إبك أيال هذا يعني وحنا لو جيدا ما حل بهم في الدنيا من العقوبة وحي أدون كمركي جوغان كل عي oo dadka dabaysha lagu halaagay kuwii qaylada lagu halaagay kuwa dhulka la gilgilay kuwii la daba gadiyay kuwii badda lagu halaagay wama ila dalika uquubadaas adduunka ku asiibtay ayaa loo jeedaa weeyaan cadaabkaadi fadaaqu wayla damiyeen wabala amrihim amarkooda oo kufrigi iyo gaalnimadii uquubadiisi bay dhadhamiyeen weeyaan ولهم آخرنا وحيليهن عذاب إليهن عذابك أليم أي مؤلم مدوحا وجيان إلهي أكتسي كليهن وين ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا ذلك سببت مركة لقوها لاقي أي رب النوع عضيني ذلك أي ذلك المذكور كالا سوشيغيو من العذاب أدونك لغو عذاب آخر عذاب وسوغي ثابت أرن سوغنوي بأنه يعني بسبب أنه يعني أرنكب أويهي كانت أي أهيد تأتيه من أتماده رسولهم رسول شوذة بالبينات آياتي عداء ولي مادان أرنكب وحوءها رسول شوذة بمعجزات ولي مدون markay mucjizaadkii ula yimaadeen faqaalu waxay yiraahdeen kuwii kufaarta ahaa mukadibiinta abasharun mabashar ba qof bani aadama ba yahdunana nahnuninayo bashar miyaan nahnuninayo hadalkaas bay yiraahdeen fakafaru way gaaloobeen oo xaqii bay diideen watawallu way jeesteen oo rususha raacitaankeedii bay ka jeesteen markay labada isku dareen wastaghna الله نو كديقتومي وما باهنا سدا درتيد بو ربي او هلاغي وي وا كديقتومي وعبادتودا iyo maarata taacadooda ilaahay uma baahna subhanahu wa ta'ala غني بكيه والله الله غني الله deeqtoon way حميد اي محمود مثل امانه امانه دن ilaahay ba iskala subhanahu wa ta'ala weeyaan marka sababkii lagu halaagay umadahaas oo cadaabka uquubada adduunkana ay ku heleen cadaabka aakhirana uu sugayo ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala sababta noo sheegay waa aayadan dambe waa tacliil oo aayada hore bay cilo u tahay cadaabkaasi weeyaan waxa la leeyahay yaani sababta ay arintaas ku dhacday rusushiiba u timid ayada wariba xujooyin cadcad ay wataan معجزات رسول والبابا رسول نمديس وحتصيو الله حقيسا لغا ايدي ايغو وتبي يمادين markaas ku beeniyeen qof bani aadama miyaan wax ka qaadanayna risaalo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala basharka uu siiyo oo rasuul uu ka dhigo oo ilaahay uu ku hanuuniyo ala yadi basharin qof bani aadama gacanta uu ku hanuuniyo ayay diidanayeen oo ma ogoleeyeen ma dhici karta bay leeyihiin واتن إلهي أوليه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس dadkii ma waxay la yaabeen inaan mid ayaga kamid intaan u waxyoona aan raahna dadka u dig miyay la yaabeen wax la yaaba maaha adaa lagu sharifo lagu qiimeey jinsiga bani aadamka markuu rabbi doortay inuu nooc yaani qolo kamidihi oo anbiyo rasuul ka dhigo waa takrima
qiimeyn jinsiga jinsul bashar la yiraahdo la qiimeeyay markaas ilaahay ma bashar baan hanuunin karo waan soo marnay fi suurati al-qamar ku soo marnay nabi ilaahi saalix markay qoomkiisa ka waramayeen waxay yiraahdeen faqalu abasharan minna wahidan nattabi'u inna idhan la fi dalalin wa su'ur saasi yiraahdeen ma qof anaga naga mida oo hal qof ah oo saalixa miyaanu raacayna hadaanu raacna bay dhahan baadi baanu ku suganay dad habaab dad dhunsan baabanahay biira nabi nimadiisi bay ku diidayaan weeyaan dalika ay dalika almadhkur kala soo sheegay oo cadaabka adduuni aakhira asiibaya faabitun misugan way bi'annahu bisababi annahu sababtuba ay tahay annahu anna al-amr wa sha'ni kanat ay ta'tihim mid utimaado rusuluhum rusushooda mid utimaado bay bil bayinati ayadihi cadcadana uu leeyimaadeen rasuulkaas mucjizo watay nabi ilaahi saalix hashiba la siiyay nabi ilaahi muusa u shiibo watay nabi ilaahi ciisa mucjizaadkaas la siiyay waakada anbiyadaas mid walba mucjizo rabbi ku xoojin jiray weeyaan faqaalu markaas waxay yiraahdeen abasharun qof bani aadam miya yahdunana anaga nahanuuninayo bashar miya nahanuunin marka suuragal ma aha inuu ilaahay bani aadam inta soo diro oo yiraahdo dadka hanuuniyo dadka xaq u sheeg wax dhici kara ma aha biilay fakafaru markaas gaaloobeen oo xaqi bay diideen waa ku kufriyeen way watawallu wayna jeesteen a'radu 'an al-'amal bihi haqq inay ku dhaqmaana waa ay diideen iyo rasuulka inay ateecaan waa ay diideen weeyaan wastaghna Allah subhanahu wa ta'ala oo ka deeqtoomay cibaadadooda uu ka deertoomay mar haday rasuulkii ku Allah ku kufriyeen rasuulkiisa ku kufriyeen xaqi ay ka jeesteen ilaahay ayaga iimaankoodii cibaadadooda mid ma baahna waa uu ka deertooniyay wallahu alla ghaniyun allahu deertoon way an khalqigiisa ka deertooniyay hamidun ay mahmudun alla la amaano oo amaano dhanba iska leh weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم زعم الذين كفروا زعم وحي شيكتين الذين كوي كفروا قالوا بي أن لن يبعثوا أي أن الأمر والشأن لن يبعثوا إنا لسو سارين يعني شأني أرنكبا لن يبعثوا إنا لسو سارين أي شيكتين قل marka waxa tira nabi ilaahi maxamedow adoo kuwa la hadlayo bala inaan la idin soo saaran iska dhaafee waa la idin soo saari warabbi aniga rabbigayga khaaliqayga ku dhaartay la tub'athunna waa la idin soo saari oo la idin soo saari oo la idin soo saari ثم markii qubuurtiina la idin ka soo saaro la tunabba'unna waa la idin warramay oo la idin warramay oo la idin warramay bima amiltum wixii aad samayseen yaani jazaheeda la idin siini wixii aad samayseen jazaheedii baa la idin siini wadaalika arinka oo ah in qubuurtiina la idin ka soo saaro dabadeetana jazihiina la idin siiya yasiirun arin sahlan oo fudud way ala allah ilaahi ku fududiyay waxba kuma aha rabbi subhanahu wa ta'ala weeyaan marka za'ama alladheena kafaru za'miga yaani waxa la yiraahdaa waa alqawl bidhanni baa la yiraahdaa lafdiga za'ama la yiraahdo oo ficilka ay waxa la yiraahdaa alqawl bidhanni qofka oo malo wuxuu maleynaa iskaga hadla la yiraahdaa waxa kale lagu itlaaqa oo culimadu ku sheegaan za'miga bimaana alkadib inuu yahay beenna waa la yiraahdaa waa been ولذلك قاضي شريح وحوديه جري لكل شيء كنية وكنية الكذب زعم شيء كستكله كنية بوليه وكنية الكذب كذب ككنية سنة وزعموا شيء كستب اللقب كنية ذا سوليه بين مركارته زعم ذا سوية زعموا ذا سبا أيو كله جساس ورنجروي marka za'ama alladheena kafaru kuwi kufaarta aha waxay sheegteen waa sheegasho iddicaada leeyahay waa iska sheegasho oo aan xaq ahayn oo been weeyaan allan yub'athu antan wa midda ay nuhadu dhahan almukhaffafatu min athqila ay yiraahdaan ismkeeduna waa damiir sha'ni oo meesha ku qadaran maarta xadfan weeyaan annahu anna al-amr wa sha'ni lan yub'athu inaan la soo saaraynin ay sheegteen weeyaan inaan qubuurtooda laga soo saaraynin ayay sheegteen markaas u jawaab leeyahay rasuulka kaleey salaatu wasalaam qul waxa tira nabi ilaahi maxamedow bala inaan la idin soo saarin iska daayay waa la idin soo saari warabbi macbuudkaygan ku dhaartay rabbigaygan ku dhaartay la tub'athunna waa la idin soo saari weeyaan
lafdiga marka balaa la yiraahdo waxa la yiraahdo waa balaada waa allati liijab an-nafy bal yiraahdo shay nafyiya yaani maartay ee muujib ka dhigayso bala inaan la idin soo saar iska dhaafay waa la idin soo saari way saasa loo jeeda waa la idin soo saari markaas la tub'athunna yaani intaas ta'kiid la isku daray waa qasam laam al-ibtidaa baa la galiyay nuun at-tawkiid baa la galiyay waxa soo dhan waxay ta'kiidaad bay kamid tahay la xoojinaya arinta la tub'athunna waa la idin soo saari wallahi baan ku dhaartay la tub'athunna waa la idin soo saari walidaalika markii yaani luqad Soomaaliga lagu bedelayo waxay culimadu yiraahdaan waa saddex jeer lagu celiyo markii nuun at-tawkiid ay tahay waa ina tiraa waa la idin soo saari la idin soo saari la idin soo saari yaani arrinkiisu u xoogan yahay قبورتنا لذلك سوصاري ثم لتنبؤن ولا إذين والرمي ولا إذين والرمي ولا إذين والرمي بما عملتم وحيات سميسين عمل كين قيامه كيس يرئي كيس وين ولا إذين والرمي ياوين يعني نبأ هل كان بمعنى الجزاء أيالي هذا الجزاء بنبأ اللوجيذا ولا إذن أبال مريني ويا وذلك أرن كاسنا oo in qubuurtiin inta la idin ka soo saaro hadana la idin abaal mariyo yasiirun mid sahlan oo fudud weey ala allah ilaahi bu ku sahlan yahay rabbi subhanahu wa ta'ala shay ku adag ma aha weeyaan ولذلك ابن كثير رحمه الله markuu aayadan ka hadlay wuxuu yiraahdaa وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده آياdan waa aayadii saddexaad oo Allah oo rasuulkiisa nabi ilaahi Muhammad oo faro inuu rabbigiisa ku dhaarto azza wajal inuu qiyaamuhu shay dhacayay waa aayadii saddexaad oo quraanka ku jirta weeyaan tan koobaad waxaan ku soo marnay fi suurati Yunus baan ku soo marnay wayastanbi'unaka ahaqqun hu qul ii wa rabbi innahu lahaqqun wama antum bimu'jizin يعني سلاس الليل وحي كويدينيان أحق هو قيامه موحجرا إن ليس سو صاري دون موح سغنبا قل وحترا نعم له وربي بان كدارتي والدين سو صاري سدا كداي بالين تاوا مد كوباد مد لبادنا في سورة السبع أيان كسو مرني وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يعني أيضا كسو مرني مركي يرهدين كفارتي لا تأتينا الساعة قيامه ما إيمانيا ما دعي قل بلى وربي لتأتينكم inaysan idin ma iska dhaafay waxaad ku tiraahdaa way idin iimaani ilaahi baa ku dhaartay way idin iimaanaysaa tanna waa midii saddexaad za'ama alladheena kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa aayad saddexda aayadood oo saddexda suura ku kala jirto ayuu rabbi ku dhaartay weeyaan فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير mar hadii marka qiyaamihi shay dhacay oo yahay faaminu rumayya dadu billahi allah rumayya wa rasuulihi rasuulkiisa oo nabi ilaahi maxamed oo soo dirsadayna rumayya wan nuuri quraanki rumayya alladhi quraanki nuurki anzalna aan soo dejinay quraanki aan soo dejinayna oo nuurka ah rumayya والله الله خبير الله جن أقوي بما تعملون وحد سمينيسان وحد عمل فليسان الله جنتي سحوس أيو كور قبائي وأقيه ويا وحد كبت باديسان قيامها مركو دعو والإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الله لا الرماية الرسول كيسو لا الرماية حقي أو رسول كان ليه من أوقفك أوقاته أيتا وحا أوقفك كبت بادي marka quraanka yaani nuurkan quraanka loo jeeda maxaa yeelay waa quraanka ilaahay oo nabi ilaahay maxamed ku soo dajiyay dadka wuxuu ka saaraa mugdiyaal buu ka saaraa shirkiga mugdigiisu ka saaraa yaani nifaaqa mugdigiisu ka saaraa dalaalka iyo baadida mugdigiisu ka saaraa nuurka iyo tawxiidka iyo maarta sunnada iyo khayrka ayuu u saaraa weeyaan halkaas u saara walidaalika ilaahay quraanka suur aayado badan buu ku tilmaamay quraanka inuu nuur yahay fi suurati al-maa'ida ku soo marnay qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه
ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيضا سكسوا مرنا نور بحق الله إذن كجيمد كتاب عد إذن يمد أو عدي الراعضة يعني ما ركتي أو كهنونيو رضاها إلهي يجدك حقا أو كجاري أو كساريو مقدياش أنت كسار إفتينك أساريويا مركا قرآنك أي اللوجينا فآمنوا الرمية بالله الله رمية ورسوله رسولك سؤال محمد الرمية عليه الصلاة والسلام والنور كي الرمية وقرآنك اللوجينا الذي نور كي أنزلنا أسود جنيه نبي الله محمد أنه كسود جنيه وقرآنك الرمية ويا والله الله خبير اللي قن أقوي بما تعملون واحد عمل فليسان قنت يده سي حقيقة ذا أي رب أقوي علم أوليه ويا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم اذكر حسنه محمد كشيكه يوم مالك كشيكه مالك أو يجمعكم الله أو إذن كل من دونه ليوم الجمع كلا كمالين تيسو إذن كل من دونه إلى يوم الجمع لامت بمعنى إلى واليوم كجرته إلى يوم الجمع إذن كل من ذلك يوم الجمع قاس كلا كمالين تيسو يوم التغابن ازدقد يعني ماركتي مالين كيديوي ودفكو ازدقان وقف بقف كلا خداع كسمايو ومالين كاسيويا ومن يؤمن قفك الرمي بالله الله رمي ويعمل عمل فلو سميا صالحا أي عملا صالحا عمل وناكسن سميسته يكفر الله وأضافي أو أستري عنه أحد كسيئاته حمايالك سبو أستره أو إلهي أضافه سبحانه وتعالى أدونك أسقو طاهر وكبحا ويدخله إلهي وقلني جنات جنوين بوقلني بيره أو تجري أي سعط من تحتها هوستيذا أي من تحت أشجارها وقصورها قيله هذا يقريه هذا هوستيذا أي سعدان الأنهار وبياش أي سعدان جنة النوع عاصنا وقلني خالدين أيغو أكوا واري فيها جنة دحلية كو واري أبدا ولقود أين نكدمانين أين نكدمانين أن لغا سارينين ويا ذلك أرنك الله صوشيغي أو إن إلهي سبحانه وتعالى ذنوب تاد أو كور دافه oo jannadiisana oo ku siiyahay alfawzu liibaanwi alazim ay weyn oo liibaan ka weyn aysan jirin weeyaan maalinkaasi weey maalinkaas dadka xusuusi baa la leeyahay yawma yajma'ukum liyawm aljam'i yawmadan darafkaas waxaan ku tacalujinayna ficil meesha ka go'an ayaan ku xireyna oo udkur ba oranayna udkur yawma yajma'ukum liyawm aljam'i نو محمد يعني أغشيك دتك حسوسي بالليل اذكر حس أو شيك يوم مالين حسوسي ودتك أشيك يجمعكم الله أو إذن كل مني ليوم الجمع كلا كمال تيسو إذن كل مني مركا يوم القيامة مقعيد أوليه هيبو كم انتهي يوم الجمع ومالك إلهي دتك يعني يوم المحشر ليرهدا دتك لكل مني لغسو كل مني يعني الله كل مني إلا أبال مريم وحال كل منيا يعني رسوشا iyo umadaheedii waa maalinka la kulminayo waa maalinta qofka iyo amalkiisii la kulminayo waa maalinka zaalimka ki ahaa iyo ki madluumka ahaa ee la dulmiyay la kulmin doono waa maalinta al-awwaliin wal-aakhiriin dadka makhluuqo idin la isku keeni doono kuwoodii hore kuwoodii dambaba maalinka la kulmin doono qul innal awwaliin wal-aakhiriin lamajmuuuna ila miiqaati yawmin ma'luum sida allah uliya subhanahu wa ta'ala maalinkaasi maalinkaas ilaahay magac u bixiyo wuxuu yiri dhalika yawm at-taghabun dhalika ka oo yawm al-jam'iga ihi yawm at-taghabuni isdagid maalinteedii oo dadku ay isdagaan ayaa la yiraahdaa marka yawm at-taghabun waa min asmaa' al-qiyam maalinta qiyaamaha magacyada uu leeyahay taghabun marka maxal loogu magacaabay waxa loogu magacaabay leeyihiin sida ay mufassiriinta Abdullah ibn Abbas Qatadah ibn Du'ama Mujahid ibn Jabr mufassiriintii salafka oo saxaabadii taabiciintii kamidii waxay ku fasiraan leeyihiin wadaalika anna ahla aljannati yaghbanuna ahla an-nar yani dadka ahlu jannaha ayaa waxay dagayaan dadka ahlu naarka oo waxa weeyaan يعني qofka mar hadooba kufri la yimid oo naarta oo galay
منازشي iyo guriyihii oo ku lahaa iyo darajaadkii oo jannada ku yeelan lahaa muuminiintii baa dhaxlayso cadaabkiisa ku galay marka waa yawm taqaabun ولذلك مقاتل وكروح ديجري لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار غبن كوين ما بجربا إصدقيت كوين ما بجرتبا إن دتك مؤمنين تنا جنة اللي جايو قال لنا عذاب كل جايو هل كان نار كل جايا غبن كوين ما جرويا غبنك أصلحان يعني وحل هذا غبن الرجل يغبن غبنا إذا غلبه ونقصه بالله مركا قفك انت كقالب نقطه حقي سآنس خامسه يا لي هذا تغابن القوم بالله هذا تذكي بقى اسبكري اسخياني اسدقي ايا الله أورنوي يعني إذا غبن بعضهم بعضا مركي قاركوت قارك كلا أو خيانه أو ذكره يعني سداسا لي هذا ويا ابن كثير رحمه الله مركو عايده فسيريو wuxuu leeyahay qabniga laftiisa wuxuu leeyahay markuu ka hadlayo waqad fassara dhalika biqawlihi ta'ala waxaba lagu fasiray taqaabunkan laftiisa aayadaha soo socda baba lagu fasiray buuli ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير لبدا آيات باب التفسير تقابل كأهبا isdagid lafteedi waa balabadan qalana inay jannadii galeen qalana ay cadaabki aadeen waa intaas weeyaan waman yu'min qofkii rumeeyo billahi allah rumeeyo oo macbuud cibaadadiisa kaliya ku khasisoon ahadna la wadaajin ويعمل صالحا عمل wanaagsan samaysto yukaffir anhu sayi'ati allah wuxuu astura oo u dhaafa sayi'aadkiisi kolkaas adduunka asagoo taahir ka baxa آخر مركو تغنا ويدخله إلهي وحو قليني جنات جنوين بو قلينيا جنوين كو تجري أي سعوة من تحتها هوستيدا الأنهار وبياشي أي قلقليا وبياشي في سورة محمد أنكسو أمرني أفرتأها أي لو جيداوي خالدين أيقو أكوا واري فيها أي في الجنة جنات كاسدحدي أي كواريان أبدا ولقود كما بنتان كما دقوبان كدمان ميسو لغا ساري مايو ولقود هالكاسي كجريان ويا ذلك المذكور قال سو شيغي ومن تكفير سيئاتهم وإدخالهم الجنة ذنوبته الله ضافه جنة إلهي يقول لك قليه الفوز العظيم الفوز ليبانوي العظيم وين وفوز كوين أسنجرين وين كاوا قيت مؤمنين تو جنة هشيو والذين كوي كفروا قالوا بي وحق ديدي وكذبوا بيني بآياتنا آياتنا بيني آياتك أما معجزاتك هالنقدين أنبياء اللي حوجيي أما آياتك التنزيلي أهايو الله رسوشي سوكسو ديجسيد القرآن كوكلا هالنقطو آياتك إلهي بيبيني أولئك كواسي كفارت أوه مكذبين تيه أصحاب النار نار تدد كيديوي أهل كيديوي خالدين كواريوي فيها نار تدحليذ كواريا ولقود كجريا وبئس وحا حماذي المصير نقط با حماذي أي المرجع والمآب يعني النقشاء يا حماضيه المخصوص بالذم جهنم أم النار نار تبقى أقو حماتي ميل الله لابتا ويا ميل الله لابتا أيضا أقو حماتي ويا marka qabnigi laftiisi oo isdagidii ah waa tan muuminiinta inay jannada galaan kufaartina inay naartaas galaan oo biisal masiir ah meel loo noqdo tan uxun ah weeyaan ma asaaba min musiibatin illa bi idnillah ma asaaba ma asibto oo ma dhacdo من مصيبة من توسك زائدة مزيدة للتأكيد لهذا مصيبة يعني أصابة فاعل كذيوي أو مارتي من أو حرف جر زائد لجوهوس لجيويا مصيبة ما دعضه مصيبة لا مهله أو ما دعضه إلا حتى يدعضه بإذن الله إذن كيس يكون دعضه أي إلا بقضائه وقدره الله قضيه سيقدر كيسة أي مصيبة سكو أهاتا مصيبة وحسكن عكر مصائبة مجره إلا وحي كو أهاتا الله سبحانه وتعالى قضيه سي قدر كيسا مركو ربي قدره وربي أو حكومة أم بمصيبة دا سدعي ويه لكن سكالة مصيبة وحس كدعي كروس ربي أوغين مجره وحكسوا وحو ربي قدره ومن يؤمن بالله قفك الله رميه يهدي إلهي وهنونيا قلبه لابتي سبو هنونيا قلب جيسا أيو ربي هنونيايو إيمانك إيا صبرك إيا دلقاتك أيو كهنونيا الله سبحانه وتعالى
والله الله عليم أله أقوي بكل شيء كست كلنا رب علم بأوليه سبحانه وتعالى وياه marka musiibadu waxay doontaa ha noqoto musiibadu waa iska caam ma asaaba min musiibatin yaani musiiba wala iska nakirey zalzal dhulka ku dhaco ha noqdo faqri qofka asiiba ha noqdo abaar umada ku dhacda ha noqoto yaani maaragtay colaad umada lagu imtixaan ha noqoto yaani dhimasho iyo mowt lagu imtixaan ha noqoto waxay doontaa marad iyo cudur ha noqdo musiiba waa tira badan tahay musiibada noocay doontaa ha noqoto wax dhici kara ma jiro illa ilaahay qadiis uu ku dhacaawiya آية في سورة الحديد أن كسو مرني أو كلبي لم يتهي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير يعني مصيبة كستكون لغي كتاب كاللوح المحفوظ كيكسو قنتهي أما أرضها كل عضو أما ماركتي نفط بني آدم كل عضو وحيد تبهن نقطة قضاء إلهي قدر كيسة أي كل عوية ما أصاب ما أصيبته أو ما دعضه من مصيبة ما دعضه أو ما أحاته ويا مصيبة ما أحاته إلا بإذن الله الله إذن كيسي قدر كيسي قضيسا أيكو أهانه ومن يؤمن بالله قفك الله رميه يهدي قلبه سوها نوريا محلو جيدا يعني وحو أقاذا قلبه سينت صواب كي تصو صبرا وحو قرتا waxaanan ilaahay u qadarin inuu isku dhacaynin buu gartaa markuu garto waxaan inay qadihi ilaahay yihiin markaasuu sabr iyo dulqaad la yimaada jazac iyo argagax kuma dhaco ee waa sabraayo dulqaad buu u yeeshaa weeyaan markaasuu amarka ilaahay isku dhiibaa subhanahu wa ta'ala Abdullah ibn Abbas markuu fasirayo yaani yahdi qalbahu lil yaqeen bawlay يقينتي أي رب قلبه سكهنونيا فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه markaasuu wuxuu gartaa waxa asaga asiiba musiibada qofka ku dhacday marna inaysan gafteen wama akhtaahu lam yakun liyusibahu wixii aanan ku dhicin oonan asiibina marna inaysan ku dhaceen ayuu gartaa weeyaan marka qadaha ilaahay qof u hoggaansan weey سعيد بن جبير يا مقاتل بن حيان waxay dhihi jireen يعني يهدي قلبه ذا waxay u jeedaan يعني يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون استرجاع بولي ماذا markii musiibada ay ku dhacdo يهدي قلبه ما argagaxee markii wuxuu yiraahdaa إنا لله وإنا إليه راجعون استرجاع بولي ماذا macnahaasna way ku fasiraan weey ولذلك نبي الله محمد markuu ka waramayo qofka mu'minka ah iimaankiisana la yaabayahay sida imaam muslim في صحيحه ku warinayo حديث صهيب iyo Xudayfa radiyallahu anhuma labadaba xadiidka ay soo saareen rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ajaban li amri almu'min qofka mu'minka arrinkiisa ayaa la yaab leh buu la yaqdi Allahu qada'an illa kana khayran lah الله حكم قدر ما قدره شيء وما قدره إلا وحو ربي أقدره مؤمن كخير بأطهيبه إن أصحابته الضراء صبر فكان خيرا له حالتي نبك لهذا هدي أصيبته وصبرا فقر با كل دعي عذر كل دعي لمشهد تميد علاد با تميد فقر وعباه لك وصبرا فكان خيرا له صبرك أخير بلا وإن أصحابته السراء حالة فرح على هدي أصيبته برواقة إلهي سي عافمات با إلهي سي علم با إلهي سي حوله رب أيالي يعني علادي كإلالي أمن بوسي وحلمت كامركو أركنا شكر فكان خيرا له وكشكر يا نعمة إلهي أوسي شكر قاسبان أخير بدن مكاسر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أرنكاس عدك الأسكال مجره إلا ذاتك مؤمنين تابوا ربي سي سبحانه وتعالى وياه ومن يؤمن قفكي رميه بالله الله رميه يهدي قلبه سوحنونيايو يقينتي صبركي بكهنونياوي والله الله عليم الله أقوي بكل شيء كست كله الله علم بقوله وحكا قرصوني مجره قفك الله رميه وما ركتي صبركنا ليمي دي قدر كيسي قضيه سر رميه إيه كان رمين إلهي سبحانه وتعالى علم بقوله ياوي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله إلهي أطيع وأمر كيسؤه قان سمع وأطيعوا الرسول رسول كان أطيع النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ووحو جديني أما أمري أما إذن كريبي كراع أو مارتك أطيع ويا فإن توليتم هذه طاعة إلهي طاعة رسولك كجيستان
haddii aad jeesataano allah iyo rasuulkiisa daacadooda aad ka jeesataan fa innamaa calaa rasuulina rasuulkeenna waxaa dushiisa un ah albalaaqu gaarsiin almubiinu cad gaarsiintiisi ay muuqato wax kaloo laga raba ma jiro marka taacada ilaahay iyo taacatu rasuul la imaada baa la leeyahay waxaa lagu ateecayaa allah wixii uu amro rasuulkiisa uu amro in la qaato oo lala yimaado allah wixii uu reebo rasuulkiisa uu reebo in lagu ateeco oo siday nooga reebeen aan uga harno taacadu waa taa weeyaan allah iyo rasuulkiisa taacadiisa cidii ka jeesatana nabi ilaahi maxamed wax dushiisa saaran ma jiro shayga dushiisa saarnaa muxuu ahaa waa albalaaq tabliiq risaalada inuu dadka soo gaarsiiyo wa ficlan wuuna gutay nabi ilaahi maxamed risaalada dadka waa uu gaarsiiyay weeyaan qalbiga inuu dadka iimaanka u geliyo nabi ilaahi maxamed ilaahi shaqo uga ma dhigin shaqada ilaahi ba iska leh shaqadiisa kamid ma aha inuu dadka iimaanka qalbiga u geliyo marka tabliiq risaala ay waajibkiisa ah waana uu gutay weeyaan wa atii'u allah ilaahi ateeca allah ateeca wa atii'u rasuula rasuulka oo nabi ilaahi maxamedna ateeca oo awaamirtooda nawaahidoodi qaata allah iyo rasuulkiisa fa in tawallaytum hadii aad jeesataan وطاعة الله وطاعة رسوله أتكجيستان فإنما على رسولنا يعني فاعلموا أنما على رسولنا رسول كان دشي سوحا هذي البلاغ جارسين المبين جارسين لماذا يدون عبدهي تاون باسارون ولذلك محمد بن شهاب الزهري وحودي جرى إمدي أهل الحديث ككمدها وحودي جرى من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم الله حقيسه waxa way risaaladii ba ka timid nabi ilaahi maxamed uu soo dhiibay nabi ilaahi maxamedna maartu waxa dushiisa inuu dadka soo gaarsiiyo annagana waxaana saaran inaan u hogaansano oo aanu qaadano risaalada ilaahi xaqiisa nooga timid oo nabi ilaahi maxamed uu noo keenay inaynu qaadano weeyaan الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنين الله لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لغو عابداه مجرو إلا هو أسق مويه أحد كلو عبادي سيحقتهي لما أرك الله مويه وعلى الله فليتوكل حتى لا سارتين المؤمنون ذاتك مؤمنين تاهو الله يرسوشي سر ميسان إلهي كليه حتى لا سارتين ويه أيضا مركة قيبتي ظهره وحال لغو سقيا وحدانية إلهي سبحانه وتعالى الله إلا وحيده إلهي يديسا ألوهيديس الله وحده رب النمديس الله وحده صفاتكيس أسماء الله وحده أحد مخلوقاتك كمذا إننا الإله للو ذا جنن الله إننا للو ذا جنن أرنتاس قيبتي ظهروه قيبت دمو آية كهد ليسنا إن إله إلا تلسارته وقفك مؤمن كمربح داد إله الرميسون تاي تلاد إن إله أتلسارته أيها لغا الربا محاير التوكل كوحال هذا وتفويض الأمر إلى الله عز وجل إلهي أمرك التفويض صوت سيسو أرنت هذا لن أديبته وحو إلهي كوحكم من الراضي أتكون قتدويا مركا الله لا إله إلا هو الله معبود كينو الله لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لغو عابداه مجرو إلا هو إساقمويه مركا هذا كان ابن كثير وكلا وحو ليه وخبر عن التوحيد بوليه فالأول خبر عن التوحيد ويعني وحا لغا ورميا توحيدك لكن ومعناه الطلب وأمر ليس سيني وحد الله أيضا لليه وكلويا أي وحد الإلهية له إله لماذا الله هو وحده أو كلبه إلا مثال مركو أمر ليس سيني لا إله إلا هو ذا إلهي كلية معبود كاس عبادي هو وحده ويا marka ka bacdi baa la yiri wa ala allah falyatawakkal hatta la saartan almu'minuna dadka mu'miniinta hatta la saarteen weeyaan waxay la mid tahay ayda fi suurat muzammil ku jirto aan arki doono insha Allah ta'ala rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila markii la yiri macbuud inuu Allah ya rabbul mashriq wal maghrib ya la yiri la ilaha illa hu وإلهي كليه وحده فاتخذه وكيلا أسجد تلسارته محايا لربي أحد كتلسارته إلهي وكف لن يهي ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ويه يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميو إن من أزواجكم هوينك نقيب كمذه إيا وأولادكم وإن من أولادكم أولادينا ilmihiina qayb kamidii caduwan cadaway lakum idinka cadaw idiin
فاحذروهم كدكتونادا حاسسكيني وهوينكيني iyo carruurtii aad dhasheen qayb kamidihi bacadu idiinaha كدكتونادا وإن تعفوا هدي آد عفسان وتصفحوا يعني إذن رحبوا قبسانيوي وتصفحوا آد اسكجد جيستان وحي سمياني عداوذودي وتغفروا آد دافتان فإن الله ألي غفور أليه دم بداف بذنوي رحيم هدران حريس شب بذنوي مركا آيادان سيد عبد الله بن عباس oo ka waramayo wuxuu leeyahay sababta ay ku soo degtay aayadani waxay ka hadlaysaa buu yiri fa haula'i rijalun aslamu min makkah dadka la hadlayo waa dad reer makka aha oo soo islaamay fa araadu marka waxay jeclaysteen an yaatu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam inay soo hijroodaan dad reer makka aha ee soo islaamay oo inay soo hijroodaan oo madiina aadaan oo nabiga u tagaan ay dooneen markaasa fa aba azwaajuhum wa awlaaduhum waxa u diiday xaasaskoodii iyo ilmahoodii wiilashoodii baa u diiday xageeba nooga tagaysaa bay yiraahdeen wuxuu leeyahay fa aba azwaajuhum wa awlaaduhum an yad'uuhum inay ka tagaan bay diideen xageeba naga aadaysaan bay yiraahdeen muddo markii la joogay waqtigiisan hijradii ka joogsadeen ay ka baaqdeen ayay waadanba tageen falamma atu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam markay nabiga u tageen Abdullah ibn Abbas wuxuu leeyahay ra'aw an-nas qad faqihu fi ad-din dadkii diinkii bartay oo al-fiqh fi ad-din ilaahi si dadkii lamidka aha ay arkeen oo ka hormaray oo khayrkii iyo nabi Muhammad ay la joogan kaleey salaatu wasalaam ayagana nabiga waa ka fogaayeen markay joogeen marka dadkii diinkii bartay oo fiqhigii al-fiqh fi ad-din haystabay arkeen markaasay fahamu an yu'aqibuhum waxay ku hamiyeen awlaadii iyo xaasaskii dib u dhigay oo cilmigan ka reebay inay ka qayb qaataan oo fiqh fi diin inay helaan oo dadkoodii la mid noqdaan ka hor istaagay inay ciqaabaan bay damceen markaasuu yiri fa anzalallahu hadhihi al-aaya markaas ilaahay aayadan soo dajiyay afarkaasna imaam at-tirmidhi ba fi sunani ku warinaayo وكذلك ابن جرير الطبري وكذلك الإمام الطبراني في المعجم الكبير أي ماذا سوى مارت ورينيسو ترمذينا وحوليه وحديث حسن صحيح وسند كيس وصحيح وياه آيات مركز سببته هنقطه خاص هنقطه أي كسو دكتي لكن أرن عامي كهد ليس وحوي وحكستو حاسس كاغا iyo caruurtaada wiilashaada jacaylkooda oo kugu xambaaro oo diin la'aan ku gaarsiiyo oo ilaahay ka fogeeyo oo dhan ba soo galayo haday midalan yaani xaraanna ka sabta ay kugu maartay ay kugu xambaaraan hadii ay taacadi ilaahay inaad ka gaabiso ay kugu xambaaraan jacaylkooda waxa dhici karto xaaskaaga aad jeceshahay awlaadaada aad jeceshahay inay xaraam kugu xambaaraan waxa dhici karta inay sabab kugu noqdaan taacadi ilaahay inaad ka gaabiso oodan la imaanin waa soo galaysaa marka aayadu waa iska caam weeyaan Allah markuu wuxuu leeyahay ka digtoonaado iska ilaaliya baa la leeyahay يا أيها الذين آمنوا مؤمنين الله رسولك سرميو إن من أزواجكم حاسسكين يعني قيد كمده إيه وأولادكم عرورتين قيد كمده عدوا عدوي لكم إذنك عدو إذيهين فاحذروهم كدكتون هذا يعني الدين الآن إذن دقنوا اسكيل عليها كو أطيعننا معاصد إله هكو أطيعننا مارة طاعد إلهي كتجيست هذا مرنا هكو أطيعنا وإن تعفوا هدي آد عفسانو ذنوبتي أي لي مادين آد فرها كقادان وتصفحوا آد يعني كجيستانو صفحي آسميسان إن آد عنانتان أما آد لبتان آد كجيستان وتغفروا آد دافتانو عيوبتودي عيبهودي آد أسترتانو وحياله أي لي مادين نحريس آد ماركتي إيواناك أقوب الدشان فإن الله ألي غفور أليه دافد بذنوي رحيم نحريس شب بذنوي مركاسو كالخيرك أغير وعداوة بهنه يعني قبها أقيسانه صفح كسمه خير كان أغير بلوجيها إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم حولها أدليذهين إيا وأولادكم عرورتين ويلاشا آدشان إيا أولادين ويلالي قبلا وحي نقدام با فتنة وامتحان فتنة إذيه والله ألنا عنده أفتيس وحاء هذا أجر إيا ثواب
oo cadiimun weyn jaza weyn ba ilaahay agtiisa ahaaday weeyaan marka waxa weey maadaama xooluhu iyo awlaaduba ay imtixaan qofka lagu imtixaanayo markii la siiyo ay yihiin iyaysan idinku xambaarin xoolihi inaad meel xun oo xaraam ka kasabtaan inaad meel xaraam ku bixisaan yaysan idinku bixin waa fitno weey awlaadi yaysan idinku bixinin xaqi ilaahay idinku laha inay idinka manciyaan macsi ilaahay inay idinku ridaan yaysan sabab idinku noqonin weeyaan marka yaani bani aadamka wuxuu jecel yahay waxay kamid yihiin xoolaha iyo awlaada iyo wuxuu kamid yahay waxyaalaha bani aadamku uu jecel yahay kamid tahay loona qurxiyay kamid yihiin Allah fi surah al-imran watuu nooga waramo yiri zuyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal-fidda wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab marka bani aadam caruurtu waa jecel yihiin waalidku waa jecel yahay caruurtiisa waxa dhici karta jacaylkooda uu jecel yahay yaani hadii ay gaajoodaan asagoon waxba haynin inuu xaraam inuu u kasbo xataa uu raadiyo ku kalifto yaa dhici karta xoolaha markuu qofku helo waxa dhici karta qani shaakir inuu yariyahay qof qaniyo ilaahay ka shukriyo waa yariyahay وقليل من عبادي الشكور إلهي لي إنه كتصان حرام مركو حوله قفك حوله يشو إنه حرام سمايه وحياله بدن طاعة إلهي كفك سمايه يعني حوله أي فساديان أي الله أركاوية مركا لبضبا اسك إلالي أبو ربي ليه هو فتنة وجربات والذين امتحانه ولذلك حديث إمام أحمد أبو داود الترمذي أبو بريدة وحوليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب نبي وحوها من خطبة أخريو asagoo minbarka saaran khudbada akhrinayo fajaa al-hasan wal-husayn alayhima qamisan ahmaran yamshiyani wa ya'tharani waxa soo baxay oo masaajidka xaqiisa soo aaday Xasan iyo Xuseen oo nabiga awoow u ahaa gabadhiisa ay dhashay ayaa halkaas oo kale ka yimid ayagoo laba qamiiso yaani gudguduudan wato ayagoo soconayo kufkufayo ayuu arkay ciyaal yar yar ku kufayo weeyaan fanazala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam min al-minbar nabiga minbarkiibu inta ka soo dagay ayuu fahamalahuma labadoodii soo qaaday fawadahuma bayna yadayhi markaas hortiisa yeelay ثم قال مركز النبي يرى عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله الله رسولك سرم بيشيغان إنما أموالكم وأولادكم فتنة إلهي مركو يري رمبو إلهي شيغ رسولكنا مركو إذا سوى قارسي رمبو شيغي وين مركز وحويري نظرت إلى هذين الصبيين المها يرير كأه لبدا ويلو يرير كابان فيريي أون إيغي يمشيان ويعثران أيغو سعونا كفكفيو أيان أركيبوين فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ما أنا صبرين إلى أن وعن حديثك خيرك أن وذي انت قويه أن أيغا سوقاته أن مارت كوريله marka khayrka xataa waxa iga hor istaagay aan wada inaan joojiyo ugu qasbay ilmaha yarka jaceelkoodina minbarka inta ka soo dagay aan soo qaatay buulay marka caruurta iyo xooluhu labadaba waa imtixaan weeyaan marka waa inaysan taacada ilaahayna ka mashquulin xaraamna inaysan labaduba sabab ugu noqonin baa إنما أموالكم أولادين إنما أموالكم حولهين وأولادكم عرورتين وحويون فتنة امتحانه والذين امتحانه والله ألنا عنده أكتس وحا هذا أجر ثواب عظيم وين أياء الله أكتس أهاتويا فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ألا كبغى ما استطعتم انت كرتان يعني استطاعديني أوديني كرانكين انتويا ربك كبغى واسمعوا مقلع الله wuxuu rabbi idin leeyahay maqla wa atii'u ogolaada oo maartay ateeca amarka ilaahay subhanahu wa ta'ala wa anfiqu bihiya khayran lakum yakun al-infaq bixinta waxay noqoni khayran mid wanaag badan li anfusikum khayran li anfusikum نفتي من wanaag badan bay noqonaysaaye xoolihiina wax ka dhiibo weeyaan waman yuqa ahad kan laga ilaaliyo shuhha nafsihi naftiisa bakhiltinimadeeda bukhligeeda laga ilaaliyo fa ulaa'ika dadkaas hum ayaga almuflihuna kuwa guuleystay oo liibaanay ah weeyaan kuwa falaaha helay fi dunya wal aakhirah wa kuwa weeyaan marka aayada fattaqullaha mastata'tum waxa weeye culimadu waxay leeyihiin بعض العلماء waxay ku tageen inay aayadan naasixah tahay
oo ay nasakhayso aayada fi suurati al-imran ku jirtay ya ayyuhalladheena aamanu taqullaha haqqa tuqatihi haqqa taqwahu waxa way ku xiran tahay istitaacada fattaqullaha mastada'tum wixii aad awoodaan ilaahay uga baqa subhanahu wa ta'ala marka waa takhsiis bay sameynaysaa nasxi ma aha yaani haqqa taqwahu wa karaankaada adiga waxa ilaahay kugu kalifo maxaa yeelay shay ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodeena ka baxsan laguma waajibna la kaga dhigin waxaanan awoodi kareynin ilaahay laguma kalifin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha waxad awoodi karta baa la rabaa qofku inuu la yimaado taqwada marka ilaahay karaankaada inta ay tahay waxba reeban alla ka cabsigaada la imow alla ka cabsiguna waxa weeye waa bimtithali awaamiri Ilaahi azza wa jalla wajtinabi nawahi Allah awaamirtiisa la qaato nawahidiisa oo laga haro ayaa loo jeedaa weeyaan fattaqullaha alla ka baqa mastada'tum inta aad kartaan yani awood inta leedihiin rabbigiina ka baqa ولذلك حديث الصحيحين كسبنا حديث أبي هريرة نبينا وحوير عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا واحد فروا انت أودي كرتان كرأي ماذا مركاسو وما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا واحد كربنا وحي آذن كربه كذا يراد اسك قتغا وانا أودي كرنا إنا كتغنا وحينا لكربي يعني الشيء اللي أمرنا وحي كأود دبر لا إيمان يسوي أود هذا وحكى بحسن إليكم ومكلف سبحانه وتعالى واسمعوا مقلا يعني أوامرت إلهي سبحانه وتعالى مقلب على ليه وحو ربي إذن كواننا أي شرعي يحكامتي مقلب وأطيعوا الله رسولك سيئا وأمرته ذي قاتوا وياه ضد إلهي رسولك سيئا قال سنبض وأنفقوا بحية خيرا لكم مركا خيرا لكم تان وحلقوا النسبيي أوجه فربضان أي علماء الشيغان لكن هل وجه ما كسو قادنينا هل وجه ما كسو قادنينا أبو عبيدنا أو كفسيريو إنان كدقنو كان إيه اسم كيدي أو قوان أو ماركتي خبر كيدي كلية ماشي أو يالله أيانو كسو قادنينا مركا وحوي خير وأنفقوا بحية يكون الانفاق بحنتي وحولها اد بحسان با waxay noqoni khayran mid wanaag badan li anfusikum naftiinana u wanaag badan yaani in kaanada ayada isimkeeda la jaro oo khabarkeeda la baaqi yeelo naxwada way ku sugan tahay ibn malik fi al-khulasa kitabkiisa alfiyaha wuxuu ku leeyahay wayahdifunaha wayubquna al-khabar وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر بأيرانا ساسو لها ويحذفونها ويقويان كان ذي إيه اسم كذب ويسلجرا ويبقون الخبر خبر كان ويباقي لنحادي ويان وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر إن إيه لونا انت بدن وابل جرابة ومشتقر ومشهور وبكوية إلا جرو كداش وذا اللي قوية ويان مركا وأنفقوا خيرا لكم يعني يكون الإنفاق خيرا لكم كاس إن أدحولها وحكب حسان أيا إذين خير بدن ووحا أذيك حر مرستيوي قيامنا مارتي لقى ثوابين يويا ومن يوقع أحد كي لقى إلاليه شح نفسه نفتي سبخيلتني ماذا إذا لقى إلاليه dadka laga ilaaliyahay fa ulaa'ika dadkaas hum ayaga al-muflixuna kuwa guuleystay waa ayaga weeyaan marka shuxigana waxa la yiraahdaa waa yaani waxa la yiraahdaa wa ashad min al-bukhli bakhiltinimada midka ka sii daran weey aad uga sii xun weey waana tan oo nabiyilaahi maxamed noo sheego yiri wattaqu shuhha war bukhliga iska ilaaliya shaxiixnimada fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum dadka idin ka horeeyay shuxigu halaagay حملهم على أن يسفكوا دماءهم وحكوا حنبار شحقي بخلقي بيقود إني داديان واستحلوا محارمهم محارمتو محرمات كي لقى حرمينا إني حلاليستان أيكوا حنباري ويا مركز شحقا وحالي هذا بخلق أسغاب كسي درن ويا مركز يعني حديث كاسنا وحاوي إمام أحمد إمام مسلم أيا ورنا وحديث جابر رضي الله عنهما ويا ومن يوقدك لغا إلاليه شح نفسي سبخيلتني مدينة أما مالها كبخيله أما علمها كبخيله أما رأيها كبخيله أما التراء ولالك مسلم كاسين لها كبخيله نوع الضونا بحان نقضيه مخلق وعام ويا قفك لغا إلاليه فأولئك دتكاسهم أيها المفلحون كوا قولي استيئه إن تقرضوا الله هديئات أما حسان إن تقرضوا هدات أما حسان الله أله قرضا أما حسنا وناكسان هديئات أما حسان يضاعفه الله لابلابي
قرضي لكم إذنكم إذن لابلابي جزيه سبو إذن لابلابي ويغفر لكم الله وإذن دافي ذنوبتين وإذن دافي والله الله شكور الله شكر بدنوي هذا حليم دلقات بدنوي الله سبحانه وتعالى marka maadaama waanfiqu khayran li anfusikum layri xoolaha dhiiba wax ka bixiya layri ee aayadan ku tirtirsiinaysa qofka jidka fi wujuhil khayr wax ku bixiyo tariiqa xaqa wax ku dhiibo oo si sharciyan wax ku bixiya waxa weeye yaani waa qof darajadiisa waxa laga dhigay qof ilaahay wax amaahiyay qof ilaahay wax amaahiya laga dhigay allah ahad wa amaahiya miyo ka halaabaya amaahdiis miyo weynaya ma weynayo bal sharafay u tahay sida doctiin maanta bani aadamka nin xoolo haysto bani aadam la ah haduu inta u yimaado adiga wax yar haysto oo ku yiraahdo war hebelo inta ay amaahi nin walba miskiin waxba haysanin ninka taajirka waa siinaya xoolihiisi sababta inuu san ka khiyaaneen oo og yahay ama bari oo ka heli karo wax badan oo ka heli karo ayuu dareensan yahay fama baalukum rabbul izza markuu leeyahay wax bixiya aniga yaa wax amaahiyo oo leeyahay marka waxa weeye waa tijaaro aadan marna ku khasaareenin weeyaan in tuqridu hadii aad amaahisan allah qardan amaah oo hasanan wanaagsan hadaad amaahisan yudaa'ifu allah wa idin laablabi lakum idinku idin laablaabay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba kaaga ma baahnay wujuhda khayrka wax ku bixi weeye saasa loo jeedaa weeye aayada fi suurat al-baqara aan ku soo marnay kale lamitaay man alladhi yuqridu allah qardan hasanan fayudaa'ifuhu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un تاسو كلوية ويغفر لكم إلهي وإذين دافي ذنوبتين وإذين دافيا والله الله شكور الله شكرين بذنوي شكرك وحلو جيدا هل كان أي يجزي القليل بالكثير وحيركو آد بحسي وحكوكو أبا المرين يوحفر بذنبو ربك هذا كوكو أبا المرين حليم هدنا الله دلقات بذنوي يصفح ويغفر ويستر إلهي أدومدي سواء عفية عقوبة كما سوى الدجيو دبو أدقها إلى أنتاس توبة كينان الله سبحانه وتعالى والله دلقات بدنوي انتاس لغو كفرني لغونا عاسني تذكر أوسي سيتديريني عالم الغيب هو الله عالم الغيب وحمقا عليه أقاوي والشهادة وعالم الشهادة وحا حاضر كاه جوغنا الله علم كلوي العزيز عليه أمر كيس وغالب يهيويه لا يغلبه أحد عزنا إيه شرفته ضمن إسكاله عدك غالب نقوب كرتنا إسنجري الحكيم الله حكمة ويانه في خلقه وأمره وقدره انت أمركيس يوحو أبوري يوحو يعني قدر يبا الله علمي بكليه شيء والبكل جينا مكان كيس مناسب كعيو دقاوية هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد